بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد إن شاء الله ما أنت مالين 4 تاريخ ذا كوب بيجنت هاي سددي توانك بسدحات ماج سندك لوكون إلى وطن وحاسة حدوين دكسيغا هوسة رحى سرع فرقان قيبتي سي لفولة كترتمي دونان ترتم فينالا لوضع فصل وكلا فصلك كوي تبناد دكسيغا سرع iyo fasalka shanaad ee dugsiga dhexe marka hore anuu yeero tartamayaasha fasalka shanaad yaxye shariif xirsi cabdulaahi shariif xirsi maxamed cali maxamed aways cabdi faadumo cabdulaahi maxamed caaisho maxamed axmed sumeyo cabdulaahi maxamed kuwaasi waa tartamayaasha fasalka shanaad sidoo kale aanu yeero tartamayaasha fasalka 11aad maxamed cabdi faarax cabdinaasir cabdulaahi ciise saciid cali maxamed shucayb cabdulaahi xuseen nimca ciise xasan haajara cabdinuur cali caaisho cali roble kuwaasi waa tartamayaasha fasalka 11aad diyaar garooba tartamayaasha fasalka shanaad waxaa yiri doonaa nambaradii su'aalaha 22 23 28 47 51 67 78 89 99 113 134 waxaan filayaa waan dareemayaa tartamayaasha fasalka shanaad inaa qorateen nambaradaasi diyaar garooba tartamayaasha fasalka 11aad waxaa yiri doonaa nambaradii su'aalaha 300 325 365 451 465 541 591 610 688 622 632 fiir gaara namada lagu yeeriyey nambar ahayn daa qabsatid micnaheedu wuxuu ka dhigan yahay eber oo su'aal malihid sidaas ula socda labada fasalka shanaad iyo fasalka 11aad hore waxaan u sheegnay tartanka inuu yahay tartankii ugu dambeeyey finalka sanad dugsiyeedka 2019 ee dugsiga hoose dhexe sare furqaan qaybtiisii la foole oo ku tartami doonaan labada fasalka shanaad iyo fasalka 11aad labada nambar ama xarfaha maanta dadka lagu bilaabi lahaa A o B maanta nambar maahan waa laba eray oo agteena qaali nugu ah cid waliba ama qof waliba oo qaali ku ah waa labada eray waa aabe iyo hooyo يعني عندك بلا aabe ama hooyo qof dirsada insha Allah taala fasalka shanaad qof soo dirsada fasalka 11aadna qof soo dirsada anigoo maxamed cabdi faarax kana socdo tartamayaasha fasalka form 3 nambarka qabsado ama xarafka qabsado wuxuu noqon doonaa aabe tartamayaasha fasalka shanaad 11aad waxay qabsadeen xarafka aabe anigoo magacay cabdulaahi shariif xirsi kana socdo tartamayaasha fasalka shanaad xarafka qabsanaya waa hooyo maanta waxa ay noqday ama waxa su'aalaha lagu bilaabi doonaa tartamayaasha fasalka 11aad oo waxay qabsadeen xarafka aabe ayaga ayaa lagu bilaabi doonaa intaan tartanka bilaabanin ka hor ardayda waxaan sheegaynaa maadaama uu yahay mid final tartanka inta la fadhiyo hadda cawasho qabtid waa sheegaysaa insha Allah taala mar haddii tartanka uu dhamaado oo su'aasha ugu dambaysa lagu weydiiyo gadaasheeda hadal imaaday ma soconayso insha Allah taala hadda waxa qabtaan oo tabanaysaan wax sax hadeeyeen meesha waxa jooga ustaad Cabdinuur Cali Afrax isaga oo insha Allah taala uu sheegaysiin aadna wacaysiin insha Allah taala intaan tartanka bilaabanin ka hor waxaan rabnaa insha Allah taala fasalka 11aad qof soo dirsada sidoo uu cabiro dareenkiisa maadaama uu yahay tartanka mid final ah hay 11aad
qof soo dirsada idinkoo waqtiga ilaalinaya aadna soo koobaysiin. فمن الذي سينيرني إظلام tartamayaasha fasalka shanaad qof soo dirsada siduu ugu hadlo dareenkiisa yani qaabku u arko tartanka maadaama aad imaadeen final. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مجيء محمد دوس عبدي كان صعدو ترتمياشا فصل كشنات وحنا قوا فرحت طالب وبطالب أمضي فمن aad iyo aad u mahadsan yahay sidoo waqtigu soo koobay maxamed aways wuxuu yidhi waxaan u arkaa inaan aad iyo aad u faraxsannahay maadaama aan nahay fasalkii imaaday final. waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala fasalka 11aad inay cid soo dirsan doonaan. aniga waa magacayga cabdinaasir cabdulaahi ciise kana socdo tartamayaasha fasalka 11aad. taa fikradka dhiibta waa aad baan u faraxsanaa horta maadaama aan finaal soo gaarnay. waxaan rajaynaynaa maanta inaan inta guul kala baxno insha allah. guushana waa xag alle. waa sax waxay rajayn doonaan ama group waliba wuxuu rajayn doonaa insha allahu tacaala inuu guuleysto. guushana waxa waaye 2 mar ama guushu 2 group kama khosriso. tartankeena bilaaban doona insha allahu tacaala. ardayda banaanka waxaan rajayn doonaa insha allah tartanku waa mid live ah waxa weeye insha allahu tacaala si wanaagsan aan u shaqeyno macallimiinta si tartanku u ahaado tartan ku dhamaado jawi degan kuna bilaawdo insha allahu tacaala sida hore u qabsay nambarka koowaad aabe fasalka 11aad nambar qabsada waa su'aashii koowaad iyo wareegii koowaad. قدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم جودوا يجود الله بالإنعام جودوا يجود الله بالإنعام. بسم الله أنا قاش عبد الله حسين كان صعد تتماشى في سلك يتوناد لمبركا قبصني وا شن بقول سغاشيكو 591 waxay nasiib u yeesheen su'aal tarbiya laga fura tartamayaasha fasalka 11aad. ما شروط الشفاعة مع الدليل؟ ما شروط الشفاعة مع الدليل؟ حنفلي إناد فانتين أو كجواب دونتان إن شاء الله. qalamow maxaa tahay aan lagaaga marmaynin muhiimadaada ii sheegadoon igama sugaynin wuxuu yidhi ma wadani aqoon lagama marmaanki macaamilaadka iyo maamulkiyo malafka diiwaanka ma guuraanka taariikhda kuu muujiyaan ahaye ma ahi aadmi ma aqaan hilmaan oo isma moodsiiyo maskax iyo mala awaal aniga madaar ku ceebeeya malaa'igta iyo aadmiguba iga ama marmaane makhluuqa curadkii waxa la iga dhigay muhiimadda weeye martibaa la ii yahaye wey marag xastaysiine ma gedgadoomo malayan sarif meel degaan ahaye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قاش عبد الله حسين كان صعد تتماشى في سلك يتوناد سؤال جاوبته دا اسكتي وا الرضا عن المشفوع له أذن الله للشفاعة أن يشفع والدليل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهاك سؤاشي كواد او اي سؤال تربية لنا ويديي ترتمياشا فصلك 11aad هديتا مساحة iyo hadii kale gudiga الأستاذ نور. jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn. إذن الله للشفاعة أن يشفع. الدليل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الرضا عن المشفوع له. الدليل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. حنفلي إناد فانتين أو عدك مقصودين. هذا ما سنياي قديغا سيدنوغ شافيي سؤال جواب تيدي ترتمياشا فصلك شناد نمبر قبصدا وسؤاشيني كواد إوريكي كواد. أنا مجيء عبد الله شريف حرسي كلا صعد ترتمياش فصل شناد لمبركا قبصني وفتي صدو. ترتمياشا فصلك شناد waxay nasiib u yeesheen su'aal saynisa laga fura tartamayaasha fasalka shanaad. waa maxay dool? mar labaad waa maxay dool? waxaan filayaa inaad fahanteen oo aad durba ka jawaabi doontaan insha Allah.
qalamow maxaa tahay aan lagaaga marmaynin wuxuu yidhi maskaxiyo mala awal aniga madar ku cebeeya malaa'igta iyo aadmiguba igama marmaane makhluuqa curadkii waxa la iga dhigay muhiimadda weeye marti baa la ii yahaye wey marag xastaysiine magedgadoomo malayansarif meeldegaan ahaye idinkuun xarfaha muujiyo malafna ii yeela maskaxi kayd ma dhigateen haddaan qalam ku meelaynin musxafka lama aruursheen haddaan qalam ku meelaynin madxafna kayd ma yeesheen haddaan qalam ku meelaynin manhajna lama diyaarsheen haddaan qalam ku meelaynin mushtari iyo macaamiil nafluhu kama macasheene waxa mideeyey duni kala maqnayd qalamka sow maahan meeleeyaha markhaatiga aan baqin qalam ku sow maahan murtiyahanka malafkaydiyaha qalam ku sow maaha malaa'igta iyo aadmiguba anay tartamayaasha fasalka shanaad jawaabta anigoo magacayga maxamed cali maxamed kana socdo tartamayaasha fasalka shanaad su-aasha jawaabteeda haddaa isku day guriga shinada su-aashii koowaad iyo wareegii koowaad oo ahayd su-aal saynis ah lana weydiiyey tartamayaasha fasalka shanaad hadday tahay misaaca iyo haddii kale gudigaal ustaad nuur jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn jawaabtu waa sida tan waa meesha shinida lagu dhaqdo oo dadku samaystaan waxaa loo yaqaanaa dool waxaan filayaa inaad fahanteen oo aad ka maqsuudeen اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا أقدامي العلم نور والظلام تأخر فمن الذي سينير لي إظلامي أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي وهاجاك إن شاء الله تعالى haddana waxaan dhegaysan doonaa ama waxaa noo muuqdo muuqaalkii ardayda waxaa waaye maanta waxaa waaye cod maahan muuqaal waaye waa muuqaalka ardayda taageerayaasha labada fasal fasalka 11aad iyo fasalka shanaad waxaan dhahaynaa daawasho wacan وبين أنصار بخير وآمين فاسلك بسم الله مقعي وأحمد نور عبد العزيز جامع taageerayaasha fasalka 11aad waxaa isku bixiyay fasalka 11aad iyo shanaad waxaan taageerayaa fasalka shanaad ku magacdee fasalka Kambaaga waxaan u rajeynayaa fasalka shanaad guul wacan insha Allah إتمامي أمسك يدي كي تستقيم دراستي وأعود خريجا لأرضي anigoo magacay xasan maxamed cali baxdan ahna fasalka form 4 anagoo isku duuban waxaan taageeraynaa labada fasal oo kala oo tartamay shanaad iyo 11aad waxaan taageeraynaa fasalka shanaad guul wacan aan rajeynaynaa insha Allah haddii aan maalin lixdaas aan madaxa wax ka dareemo maahan maanta madaxa wax ka dareemoya maanta waxay tahay nin walbo iswaala waa abiyaahela shanaado guul wacan insha Allah سينير لي إظلامي أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قوم مجاعي فراعل محمد كنا سعودة تاغيراش فصل سديدات waxaa ku tartamaya labada fasal ee kala ah fasalka shanaad iyo fasalka xidigaha ee fasalka 11aad ninkii dhahayo madaxa wax ka dareema anigana isha wax ka dareema waxa guul u rajeynaya fasalka 11aad insha Allah فمن منكم يوائمني على الأيام قد وأم المختار بين مهاجرين وبين أنصار بسم الله مقعي وأبشر محمد علي كان الصعداء تاغيرياش فصل كالحاد fasalka lixaad oo isku duuban waxay taageerayaan fasalka 11aad waxa urjeenina guul wacan insha Allah فأعود أبني بلدتي شارك أخاك الأجر في إتمامي أمسك يدي كي تستقيم دراستي وأعود
anigoo magacaygu Usaame Cabdi Cismaan kana socdo taageerayaasha fasalka afaraad waxaa saaxadan ama barxadda weyn ee iskuulka Alfurqaan ku tartami doono fasalka shanaad iyo fasalka 11aadna waxaa u rajeyn doonaa guul wacan insha Allah لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا أقدامي بسم الله والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومقعي فرتون عبد علي كانوا صعود تاغيراش فصل كتضوات waxaa tartamay fasalka shanaad iyo fasalka 12aad waxaan guur waxa u rajeedoonaa fasalka 12aad insha Allah العدو يحد من إقدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم جودوا يجود الله بالإنعام kuwaas waxay ahaayeen muuqaaladii ardayda kala taageerayeen labada fasal oo kala ah fasalka shanaad ee dugsiga dhexe iyo fasalka 11aad ee dugsiga sare horena aan ugu sheegnay oo ahaa tartan final ah wareeg koowaad fasalka 11aad waxaa la weydiiyey 4 su'aalood sidoo kale dhigoodii fasalka shanaad waxaa la weydiiyey 4 su'aalood haddii qaabka iyo su'aalihii si loo qalday loo saxay waxaa noo tabin doona al-ustaad Cumar Cali Cabdi welcome بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد ساحة الفرقان قيبتي لفولة وحاكو بلنسن فصل هذا كلاء فصل كشانات إيو فصل كوي طبانات إن إقراء إيو قريتوركا وحو أصوب بحي فصل كوي طبانات فصل كوي طبانات وحالوي دي 4 su'aalood wareegeedii koowaad su'aasha koowaad waa ay hareer mareen su'aasha labaad waa ay hareer mareen su'aasha saddexaad way sheegeen oo way asiibeen su'aasha afaraadna sidoo kale waa ay asiibeen wadarta guud ee wareegga koowaad ay keensadeen fasalka 12aad waa 4 dhibcood dhigoodii kale fasalka shanaad waxaa la weydiiyey ayagana 4 su'aalood su'aashii koowaad waa ay hareer mareen saddexaad afaraad iyo labaadne waa ay asiibeen waxay keeneen dhibca gaarayo 6 dhibcood baaqi yaraa waxaa u dirayaa marka tartamayaasha ninka isha wax ka dareemayo iyo ninka madax waxba ka dareemayo yaysan xamaasadda idin qaadin halisdejiyo waagaag aad iyo aad u mahadsan yahay al-ustaad Cumar Cali Cabdi sidoo noogu tabiyey natiijadii wareeg koowaad fasalka 11aad iyo fasalka shanaad waxaan dheena waa mahadsantihiin إتمامي أمسك يدي كي تستقيم دراستي وأعود خريجا لأرضي اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا أقدامي العلم نور والظلام تأخر فمن الذي سينير الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد إن شاء الله الله يا مهد اسكاله ما هذا ودن الله سكناتي الله سبحانه وتعالى كم كان أبوري أنت كذب إن شاء الله تعالى ما أنت أيد مالين فاينل سنة دكسيت كلامكم سياري تمام لامكم اللباتن وحا ترتن فاينل اسقي مادين لابد فصلوا كلا فصل ك shanaad oo ardayda ay u yaqaanaan campact iyo fasalka xidigaha iskuulka oo aan maqlin saakay mid ka mid ah taageerayaasha fasalka 11aad tartan waa uu dhammaaday laakiin waxaa jira xaflad yar oo gaaban xafladaasi oo aan maanta la wadaagayno ardaydeena qiimaha badan oo dadaaleen oo finalka soo gaareen sida la ognahay finalku lama yimaado waxaa lagu yimaadaa dadaal iyo ciduu ilaahay insha allahu tacaala siiya sidii hore ugu sheegay ardayga ka socda fasalka shanaad oo ka mid ah hadaladiisa hadday shanaad guulaysato waa fasal 11aad oo guulaystay haddii 11 guulaystaanne waa shanaad oo guulaystay waa hadal aad iyo aad u qiimo badan waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tahay
sidoo kale waxaa mahad ballaaran u sugnaatay dhammaan macallimiinta iyo insha allahu tacaala intaas sida muuqato fasalka guusha qaaday waa loo jeedaa ama way muuqataa insha allahu tacaala waan sheegi doonaa natiijada tartanka intaan hordhicin aan sameynin waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijada tartanka haddana dhegaysta insha allahu tacaala ardayda qiimaha badan wareeg koowaad su-aalaha waxaa lagu bilaabay oo ay noqday tartamayaasha fasalka 11aad 11aad waxaa la weydiiyey wareeg koowaad 4 su'aalood 4 su'aalood 2 ay qaldeen 2 ay saxeen wareeg koowaad fasalka 11aad waxay haystaan ama waxay heleen 4 dhibcood wareegii labaad fasalka 11aad waxaa la weydiiyey 3 su'aalood 3 su'aalood waa ay saxeen wareegga koowaad oo 4 ah iyo wareeg koowaad oo 6 ah waa 6 lagu daray 4 waa 10 dhibcood sidoo kale dhigoodii fasalka runtii waxaan dhihi karnaa fasalka shanaad waa fasal ku imaaday finalka tartamo badan oo soo galay sidaan dareemayno tartankan saakay wuxuu ahaa kii afraad buu ahaa waxaa weeye wax walba waa calaf waa nasiib sidoo kale shanaad waxaa la weydiiyey wareeg koowaad 4 su'aalood 4 su'aalood waxay qaldeen mid ka mid ah oo waxay haysteen 6 dhibcood wareeg koowaad waxaa 2 dhibcood ku hogaaminayay fasalka shanaad sidoo kale fasalka shanaad waxaan weynayaa waa ay seexdeen wareegii labaad waxaa la weydiiyey 3 su'aalood 3 su'aalood waa ay qaldeen meesha waxay ka heleen eber 6 oo wareegga koowaad ah oo lagu daray eber oo wareegii labaad ah meesha waxay ka heleen fasalka shanaad waxay ka heleen 6 dhibcood 6 oo shanaad ah oo laga jaray 10 fasalka 11aad ah 4 iyo eber guusha waxay ku raacday 11aad ayaga ayaa waxay yihiin the champions of this year waxa waaye waa fasalka 11aad waana 4 ay ku badiyeen marka waxaan baaq u dirayaa ardayda guulaystay 11aad waa sanadkii labaad aan dareemayaa ayagoo 8aad ah ayay qaadeen 2 sano ka hor maantana ayagoo 11aad ah ayay qaadeen tartanka waxaan kelimad yar aan siinaynaa mid ka mid ah ardayda fasalka 11aad iyo ardayda mid ka mid ah ardayda fasalka shanaad ardayga 11aad aan ugu wacayo wuxuu noqon doonaa Jibriil Jimcaale Xasan waxaan dhahaynaa Master Jibriil ku soo dhawaaw tartanka maanta ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 aad qaadeen koobka sideed u aragtaa maadaama aad tihiin guulaystayaasha sanad dugsiyeedka 2019-2020 bismillaah alxamdulilah marka hore ilaah baa mahad iska le dhammaan waxaan mahad celinayaa macallimiinta ardada gaar ahaan macallimiintii tartanka maalintii uu bilowday ilaa hadda dhexda u xirtay wixii waxaa la yidhi nin xil qaaday eed qaad wixii aadoo ardada xaggooda kaga yimaado iyo meel walba dhabarka u ritay waxaan leenahay adinkuna ku raalli ahaada waana mahadsantihiin ardada gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa kuwa saaka codka noogu shubay waxaa la yidhi madaxa wax masaadaalin karo wax soo socdo laakiin isha wix dhacay waa arki kartaa waad mahadsantihiin ifraax gaar ahaan ugu mahad celinayaa maal axmed haddaan ku daro wuxuu yidhi markii labaad oo aad qaadeen waa markii saddexaad fasalka 6aad maraan ku soo qaadnay fasalkii 7aad waana hareer martay fasalkii 8aad waan soo qaadnay fasalkii 9aad si lamida waana hareer martay fasalkan hadda aan ku sugannahay ee 11aad maanta guusha insha Allah ilaah waa noo qadaray waxaan u mahad celinayaa ardada dhigaan nala tartamaysay shanaad runtii waxay u tahay sharafay u tahay annagana 11aad aan nahay ayagana shanaad waaye garaad ahaan da ahaan iskuma qalanno laakiin aqoontooda halkan soo gaarsiisay
aad ay maaragtay u mudan yihiin in loo mahad celiyo maantana waxa looga qaaday dadaal maahayn waa nasiib insha allah soo diyaar garooba dhexda soo xirta sanado badan aan idiin haray waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo ardada foomfoorka qaarkood ee nagu bogaadiyey kaalinta ayaga ay gabeen inaan annaga maaragtay aan halka kasii wadno insha allah halkaasaan kusoo koobayaa maanta waa faraxsan haddaan warka isku dardaray yaan la ii qaban mahad celin iyo eedayn inta waa isku daray hana laga raalli ahaado maalinteedii waa in maalinteedii ay siisaa waxaa la rabaa in la kala garqaato aniga maanta haddaan badiyo saan raba inaad udiglayga aamustid hadal kuma furno laakiin berri aan maalintaada ku siinaa insha allah marka halkaasaan kusoo kooba kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah ardayda fasalka 11aad master Jibriil Jimcaal Xasan oo noo jeedinayay kelimadiisii gaabneed ardayda banaanka joogta waa mahadsantihiin way muuqataa inaad taageero fiican leedihiin tartamayaasha fasalka 11aad cafan hilmaam hadalku ma jira haddaad lixaad ku qaadeen waa dhashiga ay fasalka 11aad maanta waxa waaye wuu xasuusiyey waa maybe bini'aadan ah waan iloobi karaa laakiin lixaad ku qaadeen waa mahadsantihiin sidoo kale soo dhawaada fasalka shanaad soo dhawaada ana wacay xasuusmadeed waxa kootoonad waa soo dadaalnay laakiin finaalka waa naga la qaaday laakiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وهرين الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله اللي نو سورة قليي ترتن كان إنه سنة بدا أوقف صومه نو نسو دمي جيو دقن مركا روحا مهم إنان لها المامن وجيت كترتن كالله أساسي ترتن كان وجيددي سوحي تهي أردادا إن أقونتو دا أي كوكرديان دروستي لو قري سي أي سو حفظيان أي أقو ترتمان ألو سميي si imtixaamaadka finalka marka la galayo ugu dambeyn ardayga asagoo duruustii si xifdisan in uu meesha ka tago qodobka labaad waa ardayga inuu barto wax jeedin iyo dhiirinaan inuu barto weeye iskuulku had iyo jeer wuxuu ahmiyad siinayaa tartamada marka la soo gaaro qaybaha dabayaaqada ee sana dugsiyeedka marka tartan haddii la isugu yimaado sida la sheego waaye 9 fasal hal fasal laga rabaa halka fasal soo baxayana ilaah baa garanayo dadaalna laguma helo waa ilaahay inuu ku siiyo weeye imisa dadaashay oo wareeg hore 6-10 dhibcood heshay oo wareega dambe wax keeni waayeen yani taa waxaa tusaale nooga wada ah in waxa weeyaan dadaal aan lagu gaaraynin ay tahay wixii ilaahay uu ku qoray ilaahay inaad kaalmaysato ta kale ardayda iskuulku ma hal magac ay wadaagaan oo ah arday waxay kala wadaagaan iskuulka Al-Furqaan waxay kala wadaagaan fasaladana way wadaagaan sidaa daraadeed hal fasal haddii koobka uu qaado ama uu guulaysto waxaa guulaystay fasal iskuulkaas oo dhan waa guulaystay iskoolka Al-Furqaan waa guulaystay fasalka 11aad baa kaalinta qaaday Soomaa fasalada kala dhan ayagana fasalkaasi u riyaaqayaan ay la farxayaan sanadkii hore waxaa qaaday waa ognahay afraad ayaa qaaday sanadkii hore asagaasaa loo wada riyaaqayaa maalintaas waxa weeyaan farxadaas oo waxa weeyaan uu soo hooyay ayaa iskoolka dhan ay qaadaysaa ilaahay mahadi waxa sanad walba in fasal cusub oo qaado taa waxa weeyaan waxay cadeynaysaa guddiga gaar ahaan macallimiinta ku howlan iyo macallimiinta oo dhanba in ay ka run sheegayaan tartanka bani aadan baynu nahay waynu dadaalaynaa waxba naga hoos bixi karo laakiin inta badan ilaahay waxaana la og inaynu ardayda cadaalad ku wadno halkaas baynana gaarsiinaysaa sanad walba in fasal cusub uu soo baxo waxaan u hambalyaynaynaa marka fasalka guulaystay 11aad macallimiinteeni oo dhan ardadoo dhanna waxa weeyaan way u hambalyaynayaan fasalkaas oo waxa weeyaan fasalka soo baxay ayaa waxa weeyaan iskuulka dhan uu sanadkan uu u yahay fasalkii ku guulaystay ee tartanka taas waa sidaas ardada dhexdooda marka lama rabo tartanka in colaad iyo ay ka abuurto xaqdi iyo urkuqaad uu yimaado iyadana lama ogolo insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in la fahmay ujeedka tartanka waxaan ugu dambeyn aan u mahad celinayaa maamulka iskuulka maamulka sare iyo maamulka qaybta la foole kulli waan u mahad celinayaa dadaalka ay ku bixiyeen tartankan qabsoomidiis iyo macallimiinta oo soo diyaariyay su'aalaha iyo anshaxa ardada la socday in alla intuu tartanka socday waxaan si gaar ugu mahad celinayaa guddiga tartanka oo waxa weeyaan waqtigoodii u soo horayay maalin walba
si tartanka uu noqdo mid hagaagay oo waxa weeyaan sidii loogu talagalay uu dhaco dhammaan waxaan u rajaynayaa ardada iskuulka horumar iyo guul wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاسوحوها قدق جود ترتنكا اسكولكا هوسر دحيس الفرقان قريبتي سيلافولة الأستاذ نور عبد الله أبو بكر إن شاء الله تعالى سيدان دريمينو فصل كما كوكوب قاضو وحال سنجري سيد عادة هيد هديدوين أو تنقل مامولكا اسكولكا الفرقان مامولكي السرع سيدان دريمينو saakay waxaa guusha qaaday siduu macna kuu sheegay fasalka 11aad dhammaanteen waxaan dhahaynaa hambalyo dhammaan fasalka 11aad dhammaan macallimiinta ardayda maamulka dhammaan way hambalyeynayaan sidoo kale aan darabnaa inaan guddoonsiino hadiyadda koowaad waxaan guddoonsiin doonaa masterka fasalka 11aad saan ugu horeeyo al-ustaad nuur cabdullaahi abubakar waxaan ku dhahaynaa macallin soo dhawow qaado hadiyaddii waa ardayda fasalka foomasar ahayd waa guulaystayaasha iskuulka ustaad nuur cabdullaahi abubakar buu ahaa waa guddoonsiinay hadiyaddiisii maxaan la mahadsan tahay qaabka wacan aad ugu dhiirigelisay ardaydaada sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa كلمتين أنسين إن شاء الله تعالى فمصرك فصل كوي تبنات أستاذ نور عبد الله أبو بكر رنتي ومعلن أكتر قال نواه تمام معلمين وقالي تمام وقال نواه إن شاء الله تعالى أستاذ نور عبد الله أبو بكر كسروا معلم بسم الله ugu horeyn waxaan ku faraxsanahay hadiyada la guddoonsiiyay maanta taas oo sharaf weyn oo ii ah inuu guddoonsiiyo maamulka iskuulka qaybta Lafoole Alfurqaan runtii dadaal anigu aan geystay kuma aanan helin hadiyadan waxa weeyaan darajada gaarsiiyay ardada ayaa i gaarsiiyay halkaas oo ayaga shaqaystay leen ilaahay wuxuu yiri way yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu waxay jecel yihiin in lagu amaano wax aysan sameyn in waxa weeyaan kuwii tobnaad koobka ay qaadaan anigu ma sameyn ilaah baa u ogolaaday keligayna wax uma dhigo macallimiin 12 baa wax u dhigto yaani ka horjooga ahaan la ii guddoonsiiyay waxaan ku raadaa abaalmarinta laakiin abaalmarintan keligay ma leh halkaan aan ka cadeynaya waxa ila leh macallimiintii ila shaqeysay waxa ila keligay miyaan tartan qabtay maya ardadan keligay miyaa wax baro waa maya sidaa daraadeed marka waa guddoomay fasalkan u guddoomay waxaan u guddoomay aniga iyo macallimiinta oo dhan waxaan filayaa inaad ku faraxdeen warkaas inta ka bacdi waxaan leeyahay inay dadaalaan ardada oo waxa weeyaan imtixaamaadka ku soo wajahan ay u dadaalaan ayaa la rabaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hay ardayda kooyitoonada sugeynaa hay soo baxa banaanka imaada insha allahu tacaala kuwa fadhiyaan bilaabayna ardayda tatamiyaasha iyo kuwa kale soo dhawaada hay bismillaah ardaydan ujeediin waa ardayda guulaystayaasha sana dugsiyeedka 2019-2020 Alfurqaan xaruntiisii Lafoole waana fasalka 11aad waxaan dhehna hambalyo fasalka 11aad marka waxaan u taaganahay inaan idin guddoonsiino hadiyadooyinkii aad shaqaysteen aad dadaasheen waaye marka hadiyaduhu waxaa guddoonsiin doonaa insha allahu tacaala macallimiintooda qaaliga ah waxaa ugu horeeyo الأستاذ إسماعيل عثمان محمد حياك الله أستاذ هاي كأنت مديك صوب الله معلن الأستاذ إسماعيل عثمان محمد يا قدنسينا أيو وحالة قدنسي محمد بشير عبد السمد سعيد حاجي صادق عبد الله عثمان زكريا عبد الكريم أحمد موليد محمد علي شافعي نور علمي سعيد علي محمد عبد الناصر عبد الله عيسى محمد عبدي فارح شعيب عبد الله حسين جبريل جمعال حسن كواسوا ترتمياشا كوغوليستي هديدي او مرينتا هديدو وقالي ودنكيغا waxaa taagan gabdhaha fasalka kooy tobnaad عائشة علي روبله هاجرة عبد النور علي هداية عبد الرشيد حسن نمعو عيسى حسن سلمى نور علي وحانا مقا حنوسن وقبله وسده أرضو
nuur warsame iyo sumeya cabdishakuur maxamuud iyo iqro cabdulaahi ciise kuwaas oo waxa way u suurgal weysay inay ka soo qayb galaan barnaamijkan quruxda badan barnaamijkan xafladda quruxda badan ee ku guuleysteen waxaan dhehnahay ay xanuunsan yihiin ilaa caafiyo jaa'isadoodii awaalmarintoodii waan u haynaa insha allahu tacaala marka waxaan dhehnaa fasalka 11aad hambalyo 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 waa mahadsantihiin sanad dambe dulayna garsiiyo idinka fonfor ah ay rajayn doonaa insha allahu tacaala inaad aan samayn doonaa insha allahu tacaala dhankayga bidix waxaa taagan alustaad cabdinuur cali afrax ee dhegaysi wacan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد wax kale oo maana qaban insha Allah wixii barnaamijka ku saleysnaa iyo maaragtay howlaha soo dhan saadida macallimiinta iyo maamulka iyo maaragtay guddiga ayaa soo falanqeeyay waxaan halkaan ambali ugu soo jeedin doonaa insha Allah fasalka shanaad oo ahaa sanadkii hore fasalkii soo qaaday markay afaraadka ahaayeen iyagoo maantana ku darsan rabay balse maaragtay nasiibku uusan sida u noqon waxaan leenahay waxay shanaad insha Allah dadaalkooda waxay rabeen inaysan waxba ka fakan marka ninkuna hadduu maaragtay dabco inuu maaragtay hawshaas aysan dhinac ka marin hoogaa yar maaragtay waa yara kulaanad marka waxaan leenahay shanaad waa dadaasheen waqtigii ilaahay idinkugu talagalay intii aad soo dardarteen fasalladoo ka dhan waa soo dardarteen soo ma maalmahaasoo dhan maaragtay insha Allah waad faraxsanaydeen maantana waxaan idinka rabnaa insha Allah maadaama labadan fasal hadday soo gaaraan kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad guul maba loo fiiriyaba maxaa yeelay guushii iyo tartankii iyo barnaamijkiisa dhan waa soo dhammaaday labadan qofood qof uunbaa mar walba ma laisla joogaya qof uunbaa maaragtay aan la siinaya maaragtay hawsha ilaahay ugu talagalay marka waxaan leenahay waad soo dadaasheen guushii waad soo qaadeen fasalladaasoo dhan ayaad maaragtay ka soo guulaysateen marka waxaan leenahay maadaama aad tihiin arday yaryar oo maaragtay soo baxaysa dadaalkaasna rabay inay ku guulaystaan waad ku guulaysateen oo kaalinta labaad iyo kaalinta koowaad waxba isma dhaamaan sidaa ayaan maaragtay leenahay ardadeenna fasalka shanaad oo maaragtay soo dadaalay waqti badanna soo maaragtay soo muuqday waxaan leenahay insha Allah maantana waad muuqataa kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad waa isku mid kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad waa isku mid marka waxaan leenahay ardadeenna sidaa ayagoo maaragtay faraxsan hawshooda ha ku qabsadaan xilliga kale haddii ilaahay ugu talagalo way guulaysan doonaa sababtoo qofka sidaan ah guusheeda maaragtay inta sanadkii horena qaaday sanadkan kalena maaragtay u xanaaqsan inay qaadda iyadu ay rabtay waxa weeye waa qof diyaarsan waa qof waxaana qiiro leh qofka inta laga badiyo aan maaragtay waxba aan qiiroonin waxba ma leh qofku waxay samaynaysa dadaal ay muujinaysa haddii marka guushii ay qorneed waxaan leenahay waa dad aad u qiiro badan waa dad dadaal badan shanaad insha Allah waxaan leenahay waqtiyada soo socda haddii Allah awoodda uu na gaarsiiyo waxaan u malaynaynaa inay qaadi doonaan haddii ilaahay idmo sidaas ayaan leenahay shanaad fasalkooda waa fasal aad u wanaagsan waa fasal maaragtay dadaal badan insha Allah dadaalkooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha la garab galo waqtiyada soo socda haddii ilaahay aad iyo aad u mahadsan yahay alustaad cabdinuur cali afrax waanadii gaabnayd oo noo jeediyey fasalka shanaad waxaan dhehnahay idinkana hambalyo waa guulaysateen waa sida hore u sheegteen insha allahu tacaala marka macallimiinteennay sharafta leh alustaad xasan aadan xasan alustaad xasan abow ustaad xasan maxamed abow iyo ustaad maxamed sulaymaan ducaale waxaan leeyahay macallina soo gaara insha allahu tacaala noo imaada ustaad xasan aadan xasan ustaad xasan sheekh maxamed abow iyo alustaad maxamed sulaymaan ducaale haddana goordhow waxaana soo gaaray maamulka guud ee iskuulka iyo maamulka xarunta ceelasha alustaad salmaan sheekh maxamed iyo alustaad yunis cali afrax waa labada maamul xarunta lafoole xarunta ceelasha iyo xaruntii daarusalaam ahna maamul guud waxaana macallin soo dhawaada ustaad salmaan ustaad yunis soo dhawaada insha allahu tacaala noo soo dhawaada noo imaada maasha allah maanta waa maalin faraxdaysan dhammaantiin waan faraxsannahay waxaan la dabaaldegaynaa ardayda fasalka shanaad iyo fasalka 11aad marka waxaan dhinaca mahadsantihiin waa sabir wuxuu noqon doonaa xasuus badan macallimiinta iyo maamulka maanta waa la faraxsan yahay hambalyo maasha allah بالعلم لكن
ما شاء الله وما سنتين إن شاء الله تعالى ضمان مامولك معلمينتا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطفكم وحنانكم جودوا يجود الله بالإنعام جودوا يجود الله بالإنعام أنا طالب وبطالب أمضي فمن منكم يوائمني على الأيام قد وأم المختار بين مهاجرين وبين أنصار بخير وآم فاسلك طريق المصطفى متمثلا بكفالة